iyo dawladdoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdaqanadooda dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay way wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaag haddaba maanta waxa dawladda imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kala lahay oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda imaaraadka waxa ka muuqda aysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkarayaan taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaad ay ahaa dawladda ma jirto iyo warqadda dawladda imaaraadka ka timid ay isla socdaan warqadda waxa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo baraka waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawan mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax ee dawlad la'aanta warqaddan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba u cadaysay tuunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dibadda hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas'uuliyad waxa kale oo warqaddan ka soo baxday dawladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dib u xusuusan maalmihii la saxaxay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaxday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay walaada intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiga dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen ugu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jeclay shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan la hadlaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay fahmaan waxa la damacsan yahay wax dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyay waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan haddii walaaladeen nagu qaldameen inagu man ka roonaano oo man ka aamusno oo ayaynaanu jawaab cajiib haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaalaha shaqiiq ah oo leh statementkoodii baa rabaa saddexda heer ku jireen haddii sheego dagaal iyo qalalaasi ayaa hadda ka socda there's ongoing violence in Muqdisho hadduu socdaa bay dib ku leeyihiin dagaal baa socda xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa dictatoriyad bay noqotay way ka sii daraysaa Soomaaliya dawladda kama jirto way dhamaatay inteeran baa loo guuray waxaan ka soo baxnay 2012 ayay rabeen inay nagu celiyaan dawlad la'aan hadallada warqadda ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xal hadallada ku jiray heestii waan Cabdiqays ahaa ku wiirsaad leedo nolosha hawaaye aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino weynuhu idaayay waxba iyo lama tahay wax alla wax runtii warqadda ku qornay la hareen ma garanay aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino weynuhu idaayay way lama tahay dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay dhahay xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay dhahdeen Soomaaliya dawladda kama jirto ay yiraahdeen haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii carbeed ee oran jirtay as-sukut calaamatu rida aamusku waxa lagu garto inaad raali ka tahay waxaad ka aamusto nidaar qabaanigii reer Siiriyana waa masiifogeeyay aamusko sukuutka wuxuu yiri
وحويه واحتياج يوجه يألم وحكو آمس هذا كآمس تقرت هذا وحي كدقان تهاي إن توصل لكتي قبكاجي يقيمها taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin hidana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simanahay Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan sida uu dhigayo axadka qaramada midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna laguma xad gudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bed iyo balac iyo juqraafi toon dalka ugu yar ee 100 kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion ka ah according to the international law waa isku xuquuq dadku way sameeyeen midna caarma dheer sovereigns are equal and have equal sovereignty all states are equal and have equal sovereignty dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasul arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadaynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya ma jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xalaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashada ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fakaraysa faragelin inay dib uga joogsato cidii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin fadlan dib inagu filan faraq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale noogu dareen haddii aan horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxayo ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban ugu gabagabadii walaalaheena imaaraadka iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii Mawlaana Jalaaluddin Rumi ee ahayd look at my eyes they are small but they see enormous things indhahaygu way yaryar yihiin laakiin wax badan bay u jeedaan laga yaabaa inay isleeyihiin Soomaaliya waa dal soo koraya oo soo dhismaya soo kabnaya laakiin wax badan ayaa inoo muuqda oo inuu jeedaan ugu dambayn iyadoo waxaasoo dhan lagu sameeyey annaga oo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalkaa gefka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmaddeeda ugu dambaysa oo fiirsada marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacay marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacay aad iyo aad baa umahadsantihiin su'aaluhuna way inoo furan yihiin haddii aan ku weydiiyo anaa ku horeeya haddii aan ku weydiiyo waxaa tiri dawladda Imaaraadka qoraalkeeda waxa ku jiray in dagaal uu Muqdisho ka socdo madaaficdii iyo rasaastii habeenkii dhaweyto caruurta iyo waayeelka hurdada ka saliisay ma magacan dagaal ahayn oo aad idin u bixinaysaan baa jira arrintaa waa sidoo haato ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida fiican baxay dhammaan caalamkana fariintaas way gaadhay in magaalada dhexdeeda lagaga dhawaaqay inaan dawladda jirin ay maleeshiyaad yiraahdeen dawladda ma jirto annaga meesha ka dawladda marka su'aasha waxaan maleynayaa marka ummadda shacabad ku bedelaysaa meesha waddo kale jirin su'aasha ra'iisul wasaaraha ka jawaabay dawlad kale oo aqbali lahayd dunida state house-ka Nairobi ama aradkiile odaga Addis Ababa ama Djibouti
haddaad madaxtooyada horteeda ayaan odhanayaa dawladda ma jirto adaa garanaya magacdu bixinayso waa maasanta wasiir sidee lagu xagay ala saaran waaye idaacadda risaalan ka socdaa sidee lagu aamin karaa doorashada mar haddii aad caburaysiin sharaxiintii xilka madaxweynaha u tamaysay aad xabadeynaysiin guddigiisa inay banaan baxaan sidee lagu aamina hadda maanta cali su'aashaasi hadda waxaan u malaynayaa inaad topic ka yar baxsan tahay maad dhegeysan baan u malaynayaa statementkeygu wuxuu ku saabsanaa iyo warkaa sheegaya arrintii warqadii ka soo baxday dawladda aan walaalaanahay imaaraadka kaasoo aanu niri waxaanu u baahannahay bal inaad noo fasirtaan oo aad dib isugu noqotaan oo wixii aad qorteen waa wax la aqbali kara maahee waa cudurdaar ka maya waxaa dawladnimada haddaama waxaad rabtaa in la idhahdo dawlad ma jirto yaad rabtaa سعادة وزير هدي أي فسر ويان إمارات هدي أي فسر ويان taladan u jeediseen oo warqadda inay idin fasiraan iyo statement ka soo baxay maxay idin meeyla laakiin dawladda Soomaaliyeed annagu diblomaasiyaddu de channelkaas ay leedahay waxaanu leenahay waxaan bal horta hala fasiro dib hay isugu noqdeen madax waaweyn buu leeyahay dawladda imaaraadka shuyuuq bay leedahay warqaddan wasaaradda arrimaha dawladda laga soo qoray kulley waxaan filayaa in wax ka soo noqon doona waxa meesha ku qorayna wax la aqbali karayo dal qulina aqbali karayo dunida ma وقدم بحاجة أورا لا جرى حرير بالله يديني xukuumaddu go'aan bay soo saartay ah inta xaaladdan corona lagu jiro in la joojiyo sinaatnimada xukuumadda go'aankeedii golaha wasiirada ka soo baxayna isma bedelin waxa la fulinaya ciidamada amniga ay fulinayaan waxaa runtii nasiib darraayna waxay meesha maleeshiyada maadaama aad u qadimato laakiin go'aankeedii xukuumadda golaha wasiirada ilaa go'aan kale uu yimaado uu bedelo sidiisi uu intact uu yahay aad baad mahadsantahay su-aashaa سعادة الوزير مقعي ورئيس أحمد waxaan ku socdaa VOS TV isla su'aasha la xiriirta taarimaha doorashada marka ay isdul taagno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17 bishan soo saaray iclaam ah in shir muqdisho ka dhaco intuu ka kasay 18 ilaa 19 shirkaasi inuusan qabsoomin waqtigiina loo asteeyana waa la soo dhaafay dawladda federaalka maxaa kaga qorshe ah maadaama ilaa hadda madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland aysan muqdisho soo xadirin inta kale ay soo xadireen runtii inkastoo aanay xiriir la lahayn topigeena oo aynu hadda ka hadlaynay warqaddii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda haddaan in yar ku noqdo waad aragtaa tanaasulka shacabkii Soomaaliyeed iyo dunida oo dhan way aragtaa hadda madaxweynuhu markii hore garow soo jeediyey waxaa la codsaday muqdisho haddana in baydhabo la isugu tago guddidii waa lagu soo heshiiyey gogol kaluu dhigay mar walba waxaynu rabnaa oo nin doorasho inoo qabsanto dawladda waxaa ka go'an iyo hoggaanka xukuumadda in dalkan doorasho ka dhacdo haddii waad arkaysaa in la jiidayo oo aan la rabin in doorasho dhacdo waxaa laynala rabaana waxa weeye in dib laynoo celiyo innaga waxaa inaga go'an in doorasho dhacdo wax kasta oo tanaasula madaxweynaha wakii baarlamaanka ka hadlay waad xasuusataa inta jeer uu tanaasulay odagay ilaa haddana waa sii wadaynaa ma naqaano inta dee socon doono waan wadaynaa laakiin inta doorasho dhacayso ee laysu imanayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dalkeenna oo barwaaqa ah oo doorasho ka dhacday si nabadgelya inoogu dhacday oo aynu wada guulaysanay wallahi ka rajaynayaa niyaddana waxaan rabaa in shacabku khayr u sheegaan dadka meelaha wax ku qorqoraya iyo waaqacu ka raba inay kala duwan yihiin aanu sheego magaaladu waa nabad gacan ammaani bay ku jirtaa waxaynu u samaysanay ciidamada amniga inay amniga aynu ku seexanay oo ay shacabku ku seexdaan shaqadiina waynoo hayaa waynooda ku yahay qofkas ku seexdo socdaa shaqaalaheedu wuu socdaa wasiirka warbaahinta ayuu ahaa oo shir jaraa'id u qabanayay bahda warbaahinta lifekeenina intaa ayuu ku idil yahay aad baad mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha leh